shaqada. dhinaca kalena xafiiska madaxweynaha soomaaliya ayaa goor dhoweeda ka jawaabay hadalkaasi ra-iisul wasaare roble. afhayeenka iyo weliba agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha cabdirashiid maxamed xaashi oo v o eda la soo xidhiidhay ayaa waxaa waraystay wariyahayaga nuur bukhaari, waxaana ugu horreyn uu weydiiyey waxa ay kaga jawaabayaan eedahaasi ra-iisul wasaare roble ah in farmaajo uu afgembi isku dayey. walaal aad baa umahadsantiin. marka hore eedayntaas waxba kama jiraan. ereyga haddii uu tafsiirkeeda saxdaa garanayona ma isticmaaleen, sababtoo ah arrinta laga wada hadlayaa waxa weeye fashilkii ku yimid doorashada. ra-isul wasaaruhu muddo 14 bilood uu haystay arrinta doorashada. waa ogtihiin caqabada xooggale ee ka jirta. mucaaradka laftooda muddo dheer bay ka cabanayeen. guddigan doorashooyinka ee madaxa bannaan ee doorashada hagayey waa kala dhantaalay. go-aamo isaga shaksi u ah oo dowladnimada aan u danaynayn buu qaatay. intaa waxaa dheer in uu ku tagrifalay hanti qaran oo gaar ahaan ciidamada xoogga dalku ay leeyihiin. maantana kiis baa hor yaalla. waa la socotaan warkii xalay aan soo saarnay madaxtooyada ka soo baxay. muhiimaddiisu waxa weeye in la isugu yimaado shirweynihii madaxweynuhu uu ku baaqay, laga wada hadlo dhinaca doorashooyinka iyo sidii loo dardargelin lahaa. maadaama oo isaga ra-isul wasaarahana uu ku yimi kiiskani, waxaa muhiim ah inuu ka dabaasho oo sugo inta kiiskaasi dhammaanayo. inta ka horeysana waa la hakiyey awooddiisii iyo shaqadii. marka maanta waxa dhacayna dee kama ay duwanayn shaqooyinkii maalinlaha ahaa ee madaxtooyada ka qabsoomayey. waxaan intaa idiigu darayaa madaxtooyada jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaa amnigeeda u xil saaran guutada 77aad oo taliye leh, nidaamkiisii iyo kala sarrayntii ciidan leh. ma jiro ciidan gaara oo ra-iisul wasaaruhu leeyahay iyo ciidan gaara oo madaxweynuhu leeyahay. waxaa jira ciidan madaxtooyo. waa ciidankaasi waa ciidanka ugu hanaansan, ugu anshaxa badan ciidamadeenna. maanta in laga been abuuro ciidankaasna waa arrin aan dowladnimadeena u danaynayn. laakiin cabdirashiid, marka wixii maanta dhacay waxay ahaayeen wasiirada qaar baa waxay isku dayeen iyagoo ciidamo wata inay madaxtooyada gudaheeda usoo galaan. guutaduna arrintaa waa diiday. ilaalooyinka wasiiradu ay wataan sida caadada ahayd mar walba waxay kaga iman jireen baraha control ee ku gadaaman madaxtooyada. wasiirkuna isagoo caadi ah iyuu shaqadiisa soo geli jiray. laakiin ra-iisul wasaaraha waxa uu cabdirashiid, adigoo mahadsan, ra-iisul wasaaraha waxa uu ku eedeeyey madaxweynaha in ciidamo ay ka hor istaageen shaqadiisa. marka arrintaasi maxaad ugu jawaabaysaa? ciidan dee shaqadiisa ka hor istaagay ma jirto. shaqadii waa laga hakiyey marka koowaad. marka labaadna haddii u rabay inuu xafiiska madaxtooyada soo galo dee waa loo ogol yahay oo waa kii yimi oo sida caadigaaba u yimi. marka isagoo ka dhex hadlaya dee madaxtooyada gudaheedii waa la ii diiday inuu haddana yidhaahdo waalif wax buu leeyahay iyo waxba ma leh. waxaa kale uu faray ra-iisul wasaaruhu in ciidamada qalabka sida ay isaga ka amar qaataan xafiiskiisa. marka maxay madaxtooyada arrintaas uga jawaabaysaa? wallaahi waxaa u wanaagsan isaga in uu dee dhinaca shuruucda dib ugu laabto. waddanku dastuur buu leeyahay. wuxuu leeyahay nidaam iyo kala sarrayn ciidan. meel uu ra-iisul wasaaruhu ciidanka ka soo galo oo uu ku leeyahay awood uu ciidanka isagu amar siiyaa ma jiro. dee ciidanku wuxuu leeyahay taliyaha guud ee ciidamada qalabka sida. madaxweynaha jamhuuriyaddayna waajibaadkiisa tahay. qodobada dastuurka arrimaha hagayana waan jeclahay in muwaadiniinta soomaaliyeed ee idin dhegaysata aad la wadaagtaan, gaar ahaan qodobka 9aad ee dastuurka kumeel gaarhka ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya. xaaladda waxay u muuqataa inay cakiran tahay, ha noqoto xaaladda siyaasadeed ama xaaladaha kale ee amni. marka madaxweynaha muxuu u sheegayaa ummadda soomaaliyeed iyadoo la eegaya xaaladahan hadda jira? wallaahi xaalad cakiran ma jirto. haddii hadday xogogaal u tihiin dalka waanad u tihiin. xaaladdu way degan tahay. arrimahan maanta ina hor yaalla waa arrimo sharci iyo siyaasad looga dabaalan karo. ma aha arrimo dagaal iyo fadqalalo lagaga dabaalan karo. marka mar walba waxaan usoo jeedinaynaa muwaadiniinta soomaaliyeed inay isdejiyaan. kiiskan hadda hor yaalla ra-iisul wasaarahana waxaan jeclahay
inuu si qurux badan uga dabaalan doono. arrimaha doorashooyinkana shir weyn baa madaxweynuhu uu ku baaqay. shirkaasaa la isugu iman doonaa, waana laga arrinsan doonaa jihada tan xigta ee la raacayo, laakiin fashil ku yimi 14 bilood lama sii eegan karo. kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa afhayeenka iyo weliba agaasimaha warfaafinta ee xafiiska madaxweynaha soomaaliya uu warramayey waryahayaga nuur bukhaari.